وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محاضرة وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام أما ويند النبي عليه الصلاة والسلام waxaan u doorannay inaynu mowduucan ka hadallo iyadoo wakhtigan dambe ay badan tahay wax ka sheega nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulalka reer galbeedka iyadoo marmarsiiya laga dhigtay xorriyat alqowl u aragnana inaanay wax saxa ahayn waayo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaan u aragnaa inuu yahay acdamu shakhsiya fii taariikhi اlbashariya. aadam intuu dhalay calayhi الsalaam ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu yahay acdam insaan dhulkan ku kor socda. maqaayiis kasta oo lagu qiimeeyo marka aan leenahay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waa acdam insaan, qur'aanka iyo sunnadu way tilmaamayaan. waxgaradka bini aadamkiina wuu tilmaamaya. sidaa awgeed waxaanu arkayaa inay tahay dadka muslimiinta ah ee siiba yurub jooga inay ka mid tahay waxyaabaha looga fadhiyo inay nebigooda calayhi الsalaaةu wasalaam difaacaan, oo qaabka u roonay loo difaacayana ay ka mid tahay in weynidiisa la soo bandhigoo la muujiyo. wakhtiga oo kooban daraaddeed waxaan isku dayayaa markaa inaan koobo. dhan markaynu eegno koowaad diin ahaan, bini aadamka hormoodkiisu waa rususha iyo nebiyada. bini aadamka oo dhan marka la ysku daro, dadka koowaad ee hormuudka u ahi waa dadkii rabbi doortay. ilaahay wuxuu leeyay wakullan fadalnaa cala alcaalamiin intuu soo tiriyo 18 nebi oo qur-aanka fii suurati alancaam ku soo arooray. marka 18 nebi ilaahay magac dhabo ayuu odhanaya wakullan fadalnaa cala alcaalamiin, dhammaantood dunidan waannu ka doorannay baa ilahay leeya, waa ka fadil yeellay, waa ka kor yeellay. ambiyadu waxay yihiin allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah baa ilaahay yidhi. ilaahay isagaa og meesha uu risaaladiisa dhigayo cidda mudan. allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas. ilaahay dadka wuxuu ka doortaa baa rabbi tilmaamayaa, malaa'igtana rusul baa laga doortaa. ergey loo dhiibo ilaahay subxaana wa tacaala risaaladiisa ama warkiisa si uu bini aadamka u gaadhsiiyo. bini aadamkayna ilaahay rusul buu ka doortaa. nebiyullaahi muxamedna ilaahay baa qur-aanka inoo tilmaamaya inuu yahay muxammadun rasuulullah, alle rasuulkii inuu yahay. sidaa daraaddeed ayuha alxibba, risaaladu in ilaahay basharkao dhan intuu eego qof ka mida uu doorto oo uu doorto kuu la hadlaya inuu noqdo risaaladiisa u dhiibayo ee bini aadamka kala gaadhsiinaya, laba wax bay wadatay. dhan waa tashriif, waa maamuus iyo qadarin tilmaamaysa qofkani bini aadamka kale inuu ka mudan yahay. dhanna waa takliif, waa xil iyo mas'uuliyad la saarayo. idan rusushu labadaba waa wadaye. dhan waa mukallifiinoo takliif baa la saarayaa bini aadamkan inay gaadhsiiyaan risaaladii alle soo diray. dhanna waa tashriif, waa maamuus la maamuusayo ilaahay intuu khalqiga eegay inuu iyaga ka dhex doortay, waa maamuus. waxa ugu filan nebi moxamed markaa maamuus calayhi الsalaaةu wasalaam
إن إلهي تلمامي ملأ الأعلى إن يساق صليان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا ملائكتي سبحان ربي لي سبحانه وتعالى وحيكون صلينا يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي الصلاة ديسو وأن حريستيسي ملائكتنا والدعاء يا أمان مؤمنين تنوح على ليد الناس دوك لك عليا إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عرك صاروا كما مسيه دولك كركي سنو كما مسيه وأنا قفك إلهي دورتي أو دورتين الرسول نغضه هدان أخرياء آيات كقرآن أي حادثة كصار رأي مسألة سئات بيوتر بدين بل وحى تربضا نصوص التلمام سين الرسول شكلك مدنيه marka tabaqada bini aadamka kale la iskala yimaado ee la yimaado tabaqada nabiyada iyo rususha qura tabaqada dhexdeeda inuu ka mudan yahay oo ilaahay si gaar ah isaga u tilmaamay ay nusuustu tilmaamaysaa waa ka xadiiثu al-isra wal mi'raj nabiga alayhi salatu wasalaam habeenkii laga dheelmiyay ama laga kaxeeyay laga gudiyay مكة بيت المقدس اللي جاي براق بهلا يدهدا الله صار مركو النبي يقول ربي إنه فوله أي دغدغاق سميس دبتنا جبريل باوي حكيري ما يحملك على هذا يسقط أبدا الله الله يا محاكو وحنبارة يا وحرنات سميسه فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه قف إلهي أكتيس كجشرف بدني ولقي كم فولنه محل دغدغاق سابك يري جبريل فرفض عرقا بو حديث التلمامية دابدي انت يستاكتو هي النغطي أي ندي الدريرتي إذا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي قرآن كوكت المامية عقل جيسا فكرة ديسا أركت ديسا موقال كيسا قرآن بدن oo tilmaamaya jira laakiin waqtiga kooban masalada waan soo koobaya hadii waqtiga xaga dambe aan wax ka gaari kara baan tilmaami doona waxaan rabaa dadka aynu la nooleynayno la wadaagna nabi maxamed sharaftidiisa iyo mudnaantiisa taasi waxay keensanaysaa markaa inaynu tilmaamno bini aadamku muxuu mudnaan u yaqaanaa qofka la weyneeyaa waa qofka maxay ah bini aadamku majaalaat insaaniya baa jira majaalaat bini aadamka lagu maamuuso ha noqoto naxariistiisa ha noqoto geesinimadiisa ha noqoto sabirkiisa ha noqoto dulqaadkiisa ha noqoto deeq iyo gacan furaantiisa ha noqoto ballanka iyo oofinteeda ha noqoto cafwiga iyo u dhaafka uu dadka u dhaafo uu xugaystay iyagu maanta waxay sheegayaan waa irhaabi laakiin taariikhdu waxay ka markhaati kacday weligii cid wax gaadhsiisay inaanu kaba argoosanin iyadoo la isku dayay wax walba si kasta in loo dilo bini aadam wax kasta oo wax ku qiimeeya baynu leenahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hormuud buu ku yihi ilaahay oo ammaanaya markaa wuxuu leeyahay warafacnaa laka dikrak magacaaga iyo maamuuskaaga kor baan u qaaday baa ilaahay leeyahy ilaahay wuxuu ku tilmaamaya bini aadamku waxa dhaqana ee akhlaaqe bini aadamnimo la isugu faano wa innaka la ala khuluqin cadiim baa ilaahay leeyahy haddaba ayuha alikhwa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada iyo falaasafadu waa dad la buunbuuniyo maxaa lagu buunbuuniyaa aragti ama nadariyad ama fikrad ay dunida keeneen ambiyada iyo falaasafadu waxay ku kala gedisan yihiin koowaad waxa ka mid ah falaasafadu waa dad caqliga qura ka fakara ambiyadu laakiin waa dad camaliya diin cusub iyo aragtidii ilaahay u soo dhiibay waa sidaan
waxa u dheer inay yihiin dad more practical ah, dad qiyaado leh, leadership leh, oo akhlaaq leh, oo dhaqan leh, oo wax walba kaga gedisan bini'aadamtinimada. sidaa awgeed nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu odhan karnaa waa rajul fii muqaabili jamiici الrijaal, waa qof hormood u ah bashariyadoo dhan oo la hordhigi karo bini aadamka. weliba intaa waxaynu ku daraynaa wuxuu nebigu kaga gedisan yahay calayhi salaatu wasalaam bashariyada inteeda kale. isaga wax u qarsoon baan jirin. maxaan uga jeedaa? bini aadamka la maamuuso had iyo goor qayb noloshiisa ka mida si fiican looga warhayaa laga tilmaamaa. maalan nin dagaalyahanoo geesiya haddii la soo qabto bini aadamku uu dagaalyahannimo ku maamuuso, inta badan taariikhda laga hayoo dhamme waxay u badan tahay dagaalyahannimada. laakiin taariikhdiisa kale ee bini aadamnimo oo dhan lama magacaabo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisu wax maqani ma jiraan. waxa qoran wuxuu cuni jiray, wuxuu xidhan jiray, musqusha siduu u geli jiray, musqusha markuu gelaya labada adinkuu horraysiin jiray, musqusha markuu ku jiro gacantuu isticmaali jiray ee wax iskaga maydhi jiray. yacni qof noloshiisa wax qarsoonay aanay ku jirin. waxa qoran kabihiisu intay leekaayeen, cidhibta iyo xagga hore midkay u buuraayeen, indhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn, kabtu inay dhogor lahayd iyo inaanay dhogor lahayn, saddexda qayboodee kabtu u qaybsanto dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nebi moxamed way qorantahay calayhi salaatu wasalaam. waxa qoran wuxuu maro qaatay midabkay lahaayeen, waxa qoran wuxuu cunno cunay, waxa qoran wuxuu meel istaagay, waxa qoran wuxuu dagaal galay, waxa qoran wuxuu qof bini aadama la hadlay, waxa qoran wuxuu cibaadaystay, waxa qoran wuxuu ummad hoggaamiyey, waxa qoran noloshiisa oo dhan baa makshuufa. dabeetana waxaa la leeyahay waa taa taariikhdii nebi maxamede bal meel ceeb le ka soo saara. qof aan taariikhdiisa waxbaba qarsoonayn ee wax wal oo noloshiisa ka midiba uu ritan yahay oo la tilmaamayo meel ceeba ka soo saara. walidaalik baa taariikhyahankii ingiriis ee toynbee, arnold toynbee, waa qarnigii labaatanaad baan odhan karaa taariikhyahankii ugu weynaaye reer galbeed lahaayeen. waa ninkan leh taariikh alxadaaraat, ilaa 27 xadaaro oo bini aadamka soo maray buu taariikhdooda u qoray. calaa kulli xaal waa mustashriqiinta ugu waaweyn buu ahaa. toynbee ayaa wuxuu leeyahay kuwa raba inay dersaan taariikhdii nebi maxamedow waxaa helaysaan buu leeyahay sayajiduuna amaamahum min alasfaari maa laa yatawaafar miluhu lilbaaxiثiina fii xayaat أyi nebiyin min alambiyaa. waxaa helaysaan buu leeyahay taariikhda nebi maxamed kutub dhan baa helaysaan buu leeyahy oo aydan weligin ka heli karin nebi kaloo taariikhda ka midoo intaa laga hayaanay jirin. innanii adcu alcaalam buu markaa leeyahy dunida waxaan ugu yeedhayaa in mabda'a walaalnimada iyo sinaanta laga qaata buu leeyahay islaamka ayaan dunida ugu yeedhayaa. waayo buu leeyahay caqiidatu tawxiid, caqiidada ilaaha keliga sheegaysa ee uu islaamku la yimi waa arwac alamhila calaa fikra tawxiid alcaalam. waa tusaalaha ugu fiican ee bini aadam dunida ku nool lagu midayn kara buu tilmaamaya. waina fii biqaa'i alislaami amalan lilcaalami kullih. waaridda uu islaamku waaraana rajay u tahay buu leeyahay dunidoo dhan. maanta iclaamka buuqaa wuxuu ina leeyahay islaamku waa tararka dunida. socanka maaha. aqoon-yahankoodii taariikhda baadhayna wuxuu leeyahay waaritaanka islaamku wuxuu amal u yahay, wuxuu rajo u yahay buu tilmaamaya bini aadamnimada. waxa nebi maxamed muslim ka sheegay waxaan rabaa inaan ka tago, waayo ummad waliba geesigeeda iyo batalkeeda iyo nebigeeda dee waa ammaanataa. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan markaasi dee waa dadkii rumaysnaa oo ammaanaya. waxaan isku dayayaa waxa aan soo qaataa inay u bataan, kadib baan qur-aanka dib ugu noqon haddii alla yidhaahdo. laakiin waxaan isku dayayaa waxaan soo qaadanayaa inuu u bato waxay aqoon-yahankooda qoreen. weliba waxaan horraysiin doonaa kuwa kriteeriyada qoray.
aqoon-yahanka qaar reer galbeedka ah oo nebi maxamed wax ka qoray noloshiisa qayb ka mida intay qoreen bay ammaaneen ama tacaabiir duuduuba bay ka sheegeen aqoon-yahanka qaarna iyagoo bini aadamka qiimaynayay waxay dejiyeen marka hore kriteeriya wax lagu qiimeeyo yacnii qofka bini aadamka aynu odhan karno waa qaa'id ama waa hoggaamiye ama waa mudan yahay waa qofka maxay qabtay bay marka hore isweydiiyeen dabeetana kriteeriyay qoreen qofku waa inuu sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa yeeshaa markay kriteeriyada dhammeeyeen kadib ayay waxay yidhahdeen bini aadamka aan ku dabaqna haddaba yaa leh sifooyinkaa inta kriteeriyada qortay aan wax ka soo qaadaya dhammaantood waxay tilmaamayaan nebi moxamed inuu yahay kuwa ugu mudane kriteeriyada bini aadamka lagu qiimayn kara wata aan dhowr qof markaa soo qaado waxaan idiin soo qaadi doonaa lamartin alfonso lamartin iyo messerman julius messerman iyo michael hart iyo professor ro krishna waa afar dunida ka kala tirsan mid waa hindi midna waa yahuudi maraykan iyo reer yurub waa dad kala gedisan waxay isweydiiyeen marka koowaad bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimaynayo la maamusayo laleeyahay qofkani waa haliyey maxaa lagu qiimeeyaa cumuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxa lagu qiimayn karaa bay leeyihin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamka insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka aan qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one waxay yidhaahdaan cadamada marka la qiimaynayo dadka badh qoom buu weynida u yahay laakiin waxaa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwo kalena inuu dhibay maalan dagaalyahannada nin baa dagaalyahannimo lagu qiimeeyey dee qoomkiisa wuu u guuleeyey laakiin qaar kale uu jebiyey baa jira bini aadamka o dhan wax ma wada tarine qaarna wuu u hiiliyey qaarna wuu ka hiiliyey waxaa jira bay dhahaan bini aadamnimada marka la qiimaynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama waxqabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international adduunka o dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sidaa awgeed haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtiguu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd
markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaacu tilmaamayay bini aadamka iyo maamusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahay aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan sida awgeed ayi miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one walidalik baa waxa uu qoray Will Durant waxaan filayaa inuu yahay laa adri agnostic yani kuwan aan diimahaba rumaysanayn atheist maaha waa agnostic waa laa adri yani inuu jiro iyo inaanu jirin ma kala ogi anigu wax ma ogi baa la yidhaahdaa kaasi agnostiga ahi wuxuu leeyahay laba kitaabo waaweyn oo caano mid waliba dhowr iyo 10 volume yahay mid waa Story of Civilization تاريخ الحضارة الإنسانية منه Story of Philosophy تاريخ الفلسفة وعلى كتابه فوليوم كتاب كيسن لا يدهده تاريخ الحضارة أما Story of Civilization مركا وكور رمي تاريخ دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحورنا وإذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاق لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ وحوليه هدين وينك ورنا يقف بنا آدم ويندي وإنه كقيمين الراتك وبني آدم ككتجي نبي محمد وحي هيبولي كان أعظم عظماء التاريخ dadka ugu waaweyn taariikhda la tilmaamo kooda ugu sii weyn weeyaan buu leeyahay dadka ugu waaweyn cudamada taariikh markaynu meel isla dhigno cudamada uu cadiimkooda yahay ayuu ka ugu weyn yahay buu tilmaamaya waayo buu yiri shacab ku nool dhul kulul oo aan wax dhaqana wadanin carabtii jaahiliyadu tilmaamaya ayuu intuu nolosha ka saaray wuxuu gaadhsiiyay buu leeyahay nolol bini aadamku tuu ku rayreeyo nololaha ugu sarreeya kamida buu gaadhsiiyay